Audio Jungle. Audio Jungle. kadib saacada jahawareer oo laga dareemayay Gurceel iyo Dhuusamareeb ayaa hadda galaysa jawi deganaan ah waxaana goobo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan Ahlus Sunna si nabad ah kula wareegay ciidamada dawladda kuwa oo ay kamid ahaayeen saldhigga Gurceel xarunta maamulka Gurceel iyo xaruntii degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud inkastoo hoggaanka Ahlus Sunna iyo dawladda aysan isku soo dhawaanin haddana mas'uuliyiinta ayaa deegaanada ka wada dadaala lagu baajinayo xiisad gacan ka hadal gaarta waxaana Dhuusamareeb iyo Gurceel ka kala socda kulamo looga tashanaya xaaladda deegaanada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo la hadlay bulshada Gurceel ayaa hoggaanka Ahlus Sunna u jeediyay eedeyn ku aadan inay wadaan qulqulato ka dhanaa dhismaha Galmudug indharuray ku ooyaan leeyahay waxa aan arkayno maanta ma aha Ahlus Sunna sidii aan ku soo wada bilownay kama tarjumayso arrimihii masiiriga ahaa oo aan go'aanka ka gaarnay ummadda Galmudugna u sheegnay ninkii gabi lahaa ku gabiyay amaan gabadhii u mashxarada waa dib u noqosho dhaqanka hadda Ahlus Sunna wal Jamaaca markaan ka muuqda waa dib u noqosho waxaan leenahay walaalayaal ha bariiqanina jid fiican aan ku taagnay ha sababinina idinku mid yar oo idin gaaro meel adiga ku jirta labadan farood ku raadinay ila Galmudug fashilisan ودبعني أهل السنة والجماعة علماء إلهي أنت كبغداد كتيرة هجيجننا هدادنا نفهمنا يقعدوا madaxa xukuumadda dawlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah hoggaanka sare ee Ahlus Sunna ayaa VOA u sheegay runtii waxyaabaha hadda qalalaasaha oo adeertaan dhacay waxyaabo cusub bay noqdeen oo aad iyo aad aanan ka malaysanaynin xagga dawladda inay ka yimaadaan annako haddii aan nahay Ahlus Sunna wal Jamaaca haddii aan nahay Galmudug ma rabno in hal qof oo naga dhaawacmo ama hal qof oo naga dhinto ma rabno bulshadeena uma rabno deegaamadeena uma rabno meel haddii wax nooga dhaawacmayaan ama nooga dhimanayaan annakoo walaalaha madax furashada loo haysto xoreynayna inuu ama naga dhinto ama naga dhaawacmo taas ayaa diinteenuna na faraysaa annakuna aan doonaynaa inaan isu bahaysano dawladda federaalkana aan ka rabna inaan masalan ba inagu gacan siido macallin suugaal cali guuleed oo kamid ah culimada Galmudug ayaa dalbaday baajinta wax walba oo keeni kara iska horimaad dhaxmara bulshada wada degan deegaanada Galmudug midda kale waxaan u jeedinayaa culimadiinka Ahlus Sunna walaalaheen waxaan leenahay culimadeeni baa tihiin agteena waa karaamaysan tihiin halgankii Ahlus Sunna wal Jamaaca ee ka bilowday 2009 gobolada dhexe wuxuu ahaa mid diinta iyo caqiidada iyo dadka Soomaaliyeed oo goboladan dega lagu xoreeyo awalan gaar ahaan guud ahaan rabay ummadda Soomaaliyeed lagu xoreeyo nimanka ayaga ah dhibta badan ma ahayn mid aan ku raadinayno mansab adduunyo iyo power siyaasadeed ma ahayn waxaan filayaa inay ahayd Ahlus Sunna waxay halgankaas u galeysay inay ku sinto system guud oo dawli ah oo cadaalad ah oo la wareega xilkaas ay culimadu hayaan ay guntadeen ayagu soo direen waxaan rajaynaynaa dawladdan hadda joogta inay tahay systemkii ugu wanaagsanaa sida aan guud ahaan dadka Soomaaliyeed arko systemkii ugu wanaagsanaa wax lagu rajin lahaa inuu yahay waxaana deeqa dawladnimo nama deeqo jamaahiirsi iyo gobolaysi nama deeqo midda labaad waxaan u dirayaa dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha hadda hawsha ka wada caasimadda Galmudug Dhuusamareeb waxaan leenahay shaqooyinkii intooda ku ekaadeen bulshada isku dhaceeda iyo waxa weeye kala shakigeeda ha la ilaaliyo dawladdii guud waa idinka dawladdii waddanka waa dawladda dhexe dawlad goboleedkii Galmudug oo 4 bilood dib nooga dhacay oo aan sugayno intaas loo dhaga taagayena sidii loo dhaqaajin lahaa falankeeda ha la galo culimadu waa culimadiinii bulshadana waa bulshadiinii cid kala qoqob iyo waxa weeye kana waxa weeye igu mabdaa iyo midna ma jiraanin hawshii intaa ku dhamaato dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha hawshii ha dardargeliso ha dhaqaajiso
insha Allah taala inta ku baqayna walaal macna ma garab Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa bulshada ka dalbaday xalinta khilaaf kasta oo dib u dhig ku keeni kara dhismaha dawlad goboleedka Galmudug ee haatan loo darban yahay. Sheekh Shaakir ma jiraan wax wada hadallo ah oo xal looga gaarayo xaaladaha ka taagan oo Galmudug ahlu sunna iyo dawladda dhaxmaray. arrinkaasi waa midkii aan ku dadaalayna waaye waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan ku dhamaato rajaynaynaa hadii Allah idin xiisada hadda taagan waxaa jira warar sheegaya in deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud oo iyo gobolka Hiiraan oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamada ahlu sunna ay haatan gacan ku haynteeda la wareegeen dawladda arrinta ma jirtaa ciidamada maamulkii jiray oo halka ka jiray oo Galmudug ahaa iyo ciidamada dawladda labaduba gacantay ku hayaan haddana gacantay ku hayaan amnigiina waa ka wada shaqaynayaan haddana waa ka wada shaqaynayaan ilaahay idanka dhuusamareeb xaaladeedu waa sidee hadda dhuusamareeb xaaladeedu waa degan tahay aad iyo aad ay u fiican tahay ma jiraan xiriir si gaara idin dhexmaray adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha oo haatan ku wada sugan Galgaduud waa jiraan in badana wada xiriirnay waan isu nimaadnaa waana ka wada sheekaysanaa masiirka Galmudug waa ka wada sheekaysanaa waana wada quseeyaa wanaageena ku dhamayna ayaana rajaynaynaa biidin Ilaahay kariim